Soomaaliya waxay xornimo qaadatay 1960kii 60kii ilaa 69kii dawladda rayidka ayaa waddanka ka talinaysay 69kii ilaa 91kii xukun militari ayaa waddanka gacanta ku hayay inta waxaan isku dhahaa 30 sano 90kii ilaa 2019 waxaan ku jirnay burbur iyo dib u soo kabasho waana 30 sano 30 sano ee soo socota Soomaaliya nuucay aan rabnaa ayaa dadweynaha aan weydiinaynaa jawaab wacan ayaan rajaynaynaa inay ka bixin doonaan su'aashaas insha Allah run ahaantii 30 sano soo socda aniga waxay ila muuqataa 30 sano qurux badan 30 sano ma taqaanaa dadkii dhalinyarada ay baraarugeen oo maaragtay qabiil ay ka tageen ay iyagu isdoortaan oo maaragtay qofkii ay maaragtay ka shaqeynaya Soomaalida midnimada Soomaalida qofka ka shaqeynaya maaragtay horumarka waxbarashada qofka ka shaqeynaya caafimaadka qofkii arrimaha bulshada qofkii iyagu rabaan ay dooranayaan oo marka qofkaas uu yahay qof bisil oo Soomaalinimo bisil oo maaragtay qof ay wadaninimo ma taqaanaa iyo Ilaahay ka cabsi haddii aan ka shaqeyno Soomaaliya sax ah oo haddii siday u socdaan hadda ay tahay rajo badan ma jirto laakiin haddii dad daacadnimo wadaninimo badan la helo waxaan aaminsanahay inaan gaari doono mafahantii waddanku wuxuu u baahan yahay hogaamiyaal sax ah shacabka oo bislaaday oo dhibtooday oo rafaaday dhalinyarta ma taqaana dawladnimo wax la dhaho wuxuu u baahan tahay in la baro dawladnimada waxay tahay waxaan u baahanahay dad hogaamiyaal sax ah haddii la helo waa aaminsanahay Turkiya iyo Malaysia inaan ka tamikano laakiin haddii la waayo waxa waaye rajada xunta waddanka anaga waxaan ka rabnaa Yurubta Afrika inay noqoto Yurubta Afrika waddanka Soomaaliya inay noqoto ayaan rabnaa 30 sano soo socdo yaa noo soobin karo madax daacada madaxweyne daacada ra'iisul wasaare daacada wasiir daacada xildhibaano daacada inaan helno iyo dhalinyaro daacada oo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda ka fikirayo wallahi Soomaaliyada maanta Soomaaliya ka duwan baan u baahan يعني waxaan maanta dhalinyaro ahaan daawanaa filim aktarkiisu dhintay Soomaaliyan anagu dhisanay gacmaheena ku dhisanay baan u baahanahay oo Soomaaliyada maanta aan ku noolnahay ee anagu aan ku dhalanay Soomaaliya ka duwan baan u baahanahay sida aan taa u helno waxaana laga doonayaa inaan midowno dhalinyaro ahaan lana nimaadno yani mowqif markaan kula maahan reer hebel inaan la timaadid yani aqli caafimaad qaba xoog caafimaad qaba markaan inta sugayno waxaan helaynaa Soomaaliyadan u baahanahay insha Allah sidoo soo socota waxaan rajaynayaa dalkeeni oo dalka khayraad badan baa haysanaa Soomaaliland khayraadkeena oo la soo baxnay inagoo qabiilka iyo waxaan iska dhaafnay dalkeena wax hagardaaminayo gaal u dhigay waa qabyaalada kow inagoo qabyaalada laga gudbay oo dadkii qarannimo u gudbeen oo qabyaaladka gudbeen oo maamul goboleedadii iyo dawladdii iyo heshiiyeen marka hadda waa uritaada waxa ka dhacay dalka maamul goboleedada iyo dalkii dawladdii baa haysta waxa waqti baa naga luminaysa marka waxa soo jeedinaa in waqtiga naga lumaya oo la isu tanaasulo oo maamul goboleedada iyo dawladda heshiiyaan oo dastuurka la dhameystiro oo walaalaheen Soomaaliland la hadlo oo dalka la midayo isbaa loo midayo oo hore loo socdo oo qabiil iyo waxaan laga gudbo adduunka hadda dhexdeena waxa iska dhaana waa la leeyahay laangaab laga dawlad tagno laangaab boodanahay marka ina waxa ka gudubno oo adduunka la tartano oo khayraadkeena waxaan la soo baxano sidoo kale soo socota caruurteena waxbarashadooda iyo mustaqbalkooda dhan la soo baxano insha Allah waxaan rabnaa in madaxweyne daacada dadka dalka wax u tari karo burburkan hadda oo ebel nagu soo dhacila hadda na haysto waxaan rabnaa in nagula bedelo nasteexo iyo barwaaqo waxaan kala rabnaa dhalinyarada shaqo la'aanta madaxweyne daacad oo shaqo siiyo waxbarasho wanaagsan insha Allah waan rajaynaynaa wadanka Soomaaliya inay kor u kacdo ee ku soo laabato libaaxa Afrika Soomaaliya inay noqoto Soomaaliya waxaan rabnaa barwaaqo gaartay dhulkeeda ilaashatay shacabkooda gacmaha isqabsadeen maxaa la jiray qabqabalayaal ka baxday Soomaaliya aad barwaaqo u gaartay rajayna insha Allah oo dal oo عالمي aan qorno insha Allah rajayna insha Allah 30 sano ka hor iyo burbur iyo dagaal iyo dib iyo shid aan ka baxnay haddana waxaan daaganahay 30 sano soo socdo waxaan rajaynaynaa shacabka Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan xuduudaheena badaheena inay ilaalsano yaa Soomaaliya oo mida oo israacsan ummadii Soomaaliyeed oo israacsan oo isweheshina isku ooynaayo isku faraxsan bash nolol iyo wax walba inaan gaarin aan jeclaan jiilka oo hadda dhalanayo in ay mustaqbalkoodana in ay si fiican ay u taagmi doonaan aan rajaynaa Soomaaliya wallahi waxaan ka rajaynayaa Soomaaliya san midaan imid ka sii weyn 30 ka sanad waxa soo marnay burbur aad weyn ee jaamacadihii iskooladii waxbarashadii iyo dhan
haddana 30 sanana waxaan ka sii rajaynaynaa in ay noqoto Soomaaliya mid oo Afrika mid ugu fiican inay noqoto ka rajaynayna insha Allah